haddii aan hore usii soconno waxaa la yaab noqotay ama adduunyada ay idin la yaabtay meel aan adduunka ama dowladda shaqaynayn oo aanan ka jirin wax nidaam ah iyo kala dambeyn in dhaqaalaha waddankaasi uu sare u kaco. taas ayaa noqotay mid ay adduunka oo idil ay la yaabaan, ahna mid qariib ah, bal adduunka oo idil aysan ka dhicin. taasina waxay soo jiidatay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta oo la yaabtay kuna tilmaamtay Soomaaliya inay tahay waddanka keliya ee aan wax dowladda shaqaynayn ku dhawaad 20 sano oo ganacsigeeda iyo dhaqaalaheeda mid sare u kacaya. hay-adda ayaa ku tilmaamtay mid Soomaaliya adduunka oo idil ka duwan ahna midka keliya ay iskoorkaas sameeyey sida caadiga ah. adduunka oo idin ayaa la yaabay, weli lama tijaabin, lama samaynin in adduunka oo idin kama aysana dhicin in ay dhacdo in adduunka oo idin ay ka dhacdo waddan 20 sano 5 sano xataa ay ka dhacdo dowlad la'aan noqdo, dhaqaalihiisa sare u kaco, in ganacsi horumar ay sameeyaan waddankaasi. adduunka kama dhicin. Soomaaliya keliya ayaa keliga u ah bayna soo jiidatay caalamka oo idin. usbuucan ayaa noqotay midka keliya lala yaabo, hadalhaynta ugu badanna laga hayo. arrintaasi ayaa ugu weyneyd maanta barnaamijkeena.